دوكيومنتريgan wuxuu daaha ka rogayaa sifaadka iyo sooyaalkii dahabiga ahaa ee Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Ibraahim kaasi oo ahaa tiir dhexaad ku suntan cilmi, cibaado iyo barbaarinta bulshada. Eebbaweyne subxaanahu wa tacaala wuxuu mar walba ummaddan u qoondeeyaa hal doorro u taagan ilaalinta dhaxalkii ambiyada, kuwaasi oo u dhabar adeegaya gudbinta nuurka cilmiga iyo dabargoynta madowga jahliga. culimadaasi miisaanka culus ku dhex leh fagaaraha dacwada iyo tacliinta geeska Afrika waxaa safka hore kaga jira Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Ibraahim oo ah caalim isku darsaday aqoon xeel dheer, anshax suuban iyo hufnaan lagu tusaaleeyo qofka aqoontiisa ku dhaqma. sheekhu waxa uu ka dhashay qoys loogu soo hirto aqoonta iyo dhowrsanaanta, abtirsiintiisuna waxa ay ku xidhiidhaa silsiladda sharafta leh ee khaliifkii koowaad ee islaamka Abubakar Sidiiq radiyallahu anhu arda. waxa uuna ku dhashay geyiga Soomaaliyeed gaar ahaan dowladda deegaanka Soomaalida goob loo yaqaan Xangey sanadkii 1357 hijriga. wuxuuna ku koray deegaan ay hadheeyeen barashada Qur'aanka Kariimka ah iyo dhuuxista shariicada Islaamku. isagoo yar ayuuna xafiday Qur'aanka Kariimka ah, wuxuuna tusmada hore ka qaatay aabihii oo baray mabaadi'da asaasiga ah ee madhabka Imaamu Shaafici iyo caqiidada Islaamka. taasina waxay u samaysay sees adag oo uu kaga duulo hilaabta aqoonta. kadib markii uu garaasaday inkastoo uu haraad u qabay raadinta cilmi dheeri ah, haddana waxa uu mudnaanta siiyey u adeegista iyo baarinimo samaynta waalidkii, wuxuuna u adeegayay ilaa intii aabihii ka geeriyoonayay. taasina waa astaan looga bartay qofka u hoggaansan amarka Eebbe. geeridii aabihii kadibna waxa uu bilaabay safar baadigoob cilmi oo dheeri ah, isagoo oo lug ku gaalaabaxayay miyiga iyo magaalooyinka geyiga Soomaaliyeed si uu u weheshado xalaqooyinka culimada waaweyn. dadaalkaasi dheeraa wuxuu ka dhaxlay aqoon baaxad leh oo koobtay culumta shareecada sida tafsiirka, xadiiska, fiqhiga iyo luqadaha. mana uusan ahayn arday kaliya qaata cilmiga, balse waxa uu ahaa macallin duruusta u naqtiima saaxiibadiisa. taasi oo muujisay kartidiisa iyo hibada uu leeyahay xifdinta Qur'aanka Kariimka iyo shariicada Islaamka. culimadii xilligaasi joogtay waxay ku tiriyeen mid leh hayaan horumarineed iyo hogaamiye dacwadeed. inkastoo uu ka cagajiiday istawaaducin awgeed, ugu dambeyntii waxa uu aqbalay in uu qayb ka noqdo fidinta dacwadda diinta Islaamka. sanadkii 1986 taariikhda miilaadiga ayuuna aasaasay xaruntii ugu horreysay ee waxbarashada iyo dacwadda, taasi oo noqotay barbilow soo saartay boqolaal culimaha oo maanta dalka dhexdiisa iyo dibaddiisaba ka wada howlaha hanuuninta iyo hagaajinta bulshada. xeerarka iyo habraacyada barisbarasho ee sheekha. culimada dhabta ah waxaa lagu gartaa saamaynta manhajkooda iyo hufnaanta tarbiyada ay ku dhisayaan jiilasha cusub. duruusta Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Ibraahim ee xafide waxay u gooni yihiin astaamo aqooneed oo salka ku haya xeel dheeri iyo nidaam waxbarasho oo midho dhal ah. waxaana ka mid ah ka hor bilaabista iyo gabagabada casharka. sheekhu kuma ekaado gudbinta aqoonta maskaxeed oo kaliya, balse cashar kasta wuxuu ku furayay kuna soo afmeerayay akhrinta Qur'aanka Kariimka ah iyo ducooyinka qulubta dejiya. arrintanina ardayda waxa ay ku beeraysaa in cilmigu yahay cibaado u baahan tawfiiq iyo barako Eebbe, kana fog madal aqooneed oo maran. daryeelka heerarka fahamka. isaga oo tixgelinaya kala duwanaanshaha garashada iyo garaadka ardayda, sheekhu ma saarayo qofka tabarta yar culays uusan xamili karin. sidoo kalena ma xanimayo ardayga hilaabta dheer si uu dib ugu dhaco. wuxuuna hirgelinayaa cadaalad tarbiyadeed oo qof kasta siinaysa dhiirigelin u gaar ah. daacadnimada iyo hufnaanta. sida looga bartay culimada rabbaaniyiinta ah ama barbaariyaasha ah, sheekhu waxa uu darsigiisa u gutaa si daacadnimo iyo ammaano ku dheehan tahay. arrintan waxay fududeynaysaa in fariintiisu ay si toos ah u gaadho ama ugu dhacdo dhuuxa iyo qalbiyada ardayda. sugidda matniga iyo turjumaadda erayada. ka hor inta uusan u gudbin sharaxaadda guud, sheekhu waxa uu diiradda saarayaa matniga, isaga oo si ere ah ugu celcelinaya dhowr goor. tani waxay xoojinaysaa fahamka asaasiga ah, waxayna ardayda baraysaa sida loo dabaqo nuxurka qoraalka iyo sharaxaadda. dhammaystirka mawduuca. sheekhu waxa uu hal mawduuc u soo ururiyaa aragtiyaha culimadii hore iyo kuwan dambe, isaga oo ka soo minguurinaya ama ka soo xiganaya ilo kala duwan. tanina waxay ardayda u samaysaa sawir ballaaran, waxayna u fududeysaa fahamka khilaafka cilmiga iyo sida loogu dhex safro madaahibta kala duwan. isku xidhka taxanaha casharada. habraaca sheekha waxaa ka mid ahaa in uu cashar kasta ku xidho casharkii ka horreeyey si uu ardaygu faham guud uga qaato kitaabka uu dul taagan yahay, ama casharkii hore iyo casharkan uu isugu xidho.
manhajkani ma aha oo keliya barasho cilmi balse waa hanaan tarbiyadeed oo dhammaystiran oo soo saaraya aqoon-yahan iyo aqoon asluub ku salaysan. sidoo kale sheekhu kuma ekaado oo keliya sharaxaada kutubta balse waxa uu xooga saaraa dhismaha caqliga ardayda isagoo oo adeegsanaya hanaankan soo socda: xifdinta qodobada iyo qawaacidda. sheekhu wuxuu ardayda ku dhiirigeliyaa in ay xafidaan gabayada cilmiga ah si ay ugu noqoto sahay aqooneed oo u sahlaysa in dib uu ugu laabto iyadoo ay xeerarka shareecadu maskaxdiisa ku kaydsan yihiin. sheekhu wuxuu dhuuxa kutubta ka soo saaraa nuqurka iyo xeerarka guud ee cilmi kasta uu ku salaysan yahay si uu ardayga ugu fududeeyo masaa'ilka adag iyo hanaanka isku xidhka aqoonta. anshaxa iyo joogtaynta. sheekhu waxa uu rukun adag ka dhigan jiray dhabar adayga iyo ka fogaanshaha ka maaqnaanshaha cashirada, taas oo baraysa ardayda qiimaha waqtigu uu leeyahay iyo muhiimadda ay leedahay in cilmiga loo go'o. taasi waxay keentay in manhajkiisu noqdo dugsi laga barto mas'uuliyadda. marka laga sheekaynayo dadaaladii dacwadeed ee sheekh cabdulqaadir sheekh ibraahim, looma eego oo keliya macallin dersi bixiyey balse waxaa loo arkaa aasaasay mashruuc nololeed oo isku xidhay nuxurka shareecada iyo baahidaha taagan ee bulshada. waxaana ka muuqda shaqadiisa fariin iimaan leh oo ka turjumaysa sida aqoonta dhabtiha ee nolol ugu abuurta bulshada jaahilnimadu haraysay. saldhigga qur'aanka kariimka ah. sheekhu waxa uu ka dhigtay kitaabka qur'aanka kariimka ah udub dhexaadka mashruuciisa dacwadeed, wuxuuna yeelay golayaal qur'aanka kariimka ah lagu barto oo aan ku ekayn dhawaaqa erayada qur'aanka kariimka ah balse u gudbeeya barashada tadabburka iyo anshaxa qur'aanku uu farayo. wuxuuna soo saaray jiilal qur'aanku dhiigooda iyo dhuuxoodaba uu raacay, kuwaasi oo turjumaya nolosha sidii ay ahayd habdhaqankii asxaabtii hore. intii uu barayay ardada culumta shareecada sida tafsiirka, xadiiska iyo fiqiga, ma uusan doonaynin in uu soo saaro dad xogta uun soo xambaara, balse wuxuu hilaadiyey culimo leh awoodda fahamka dulucda dacwadda iyadoo oo lagu dhex jiro mabaadida ahlusunna waljamaaca. aragtidan fogi waxay dhashay culimo iyo daaciyiin bulshada oo dhan ku baahiyey, kuwaas oo meel kasta oo ay tageen ka noqday laambado iftiiminaya. taasna waxa aad ka dheehan kartaa in sheekhu uusan bixin jirin casharo qalalan balse uu dhisayay nidaam aqooneed oo leh qorshe xifdi, anshax iyo hirgelin dhab ah. hab u samaynta iyo toosinta bulshada. tan iyo waagii uu garaadsaday sheekhu waxa uu dhexda u xidhay sidii uu bulshada uga saari lahaa mugdiga jahliga, isaga oo aaminsanaa in aanay nololi jiraynin haddii aan qulubta lagu daweynin iftiinka iimaanka. dacwadiisu ma ahayn mid ku kooban mimbarka oo keliya balse waxay ahayd howlgal isugu jira nafhur, waqti u hibayn iyo maalbixin. sheekhu waxa uu ku guulaystay in uu soo saaro haldoorro dacwadeed isaga oo diyaariyay culimo iyo daaciyiin gobolka iyo magaalooyinkaba ku faafiyey sacaadada kitaabka qur'aanka kariimka ah iyo sunnada nebiga sallallahu calayhi wasallam. sheekhu waxa uu u taagnaa sidii dhakhtar ruuxi ah oo kale oo bixinaya dawooyinka boogaha ay bulshadu leedahay. waxa uuna caan ku ahaa dhexdhexaadinta iyo isu keenidda ummadda marka fitantu ay dilaacdo. taariikhdana waxaa ku qoran siduu ugu dhiiriday bakhtiinta colaado dhiig badani ku daadan lahaa, isaga oo adeegsanaya hubaalnimada xigmaddiisa iyo hadal uu toos ugu hagayo qulubta iyo garashada bulshada. markasta waxa uu diyaar u ahaa in maalkiisa iyo naftiisaba uu huro sidii meesha looga saari lahaa kala qaybsanaanta bulshada loona adkayn lahaa walaaltinimada muslimiinta. garashada fog ee sheekhu waxay tustay in dacwaddu u baahan tahay xudun ay saldhigato. sanadkii 2000 guuritaankii dhinaca raaso waxa uu noqday hijro barakaysan, wuxuuna hanaankii dacwadda u rogay mid nidaamsan. taasna waxay markiiba isu beddeshay miraad looga soo hurto cilmiga diinta islaamka iyo hooy loogu kabciyo culimada mustaqbalka. talaabadanina waxay keentay in saalamiinta cilmiyeed ee sheekhu ay dhaafto soo hodimaha deegaanka kuna baahdo guud ahaanba gobolka iyo dabadiisaba. dhab ahaantii sooyaalka iyo sifooyinka sheekh cabdulqaadir sheekh ibraahim ma aha sheeko qof gaar ah ku kooban balse waa taariikh nololeed ummadi leedahay. cimrigiisa waxa uu ka dhigay buundo ay dacwaddu ugu gudubto jiilba jiilka uu ka dambeeyo. aqoontiisuna waxay noqotay iftiin hagaya kuwa raba in ay u jihaystaan tubta toosan ee diinta islaamka. ka hadalka sheekhu ma aha oo keliya milicsi hore balse waa fariin loogu talagalay jiilasha soo kacaya, taasi oo u sheegaysa in guusha ummaddu ay ku xidhan tahay caalim daacad ah, go'aan adag iyo samir aan damayn. rabbi subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo
abaalkii uu u galay ummadda muslimiinta sheekh cabdulqaadir sheekh ibraahim. maanta waxaynu ku weyneynaynaa xarunta aqoonta ee jaamacadda islaamiga ah ee raaso annagoo milacsanayna sooyaalka 60 sano kor u soo dhismayay. socdaalkana waa mid ku suntan dhabar adayga iyo himilada caalimka weyn ee sheekh cabdulqaadir sheekh ibraahim iyo qof walba oo dadaalkaasi qayb ka geystay oo ay ku ka ahaayeen xertiisii iyo dadkii uu soo saaray. sanadkii 2012 wuxuu noqday isbedelka dhabta ah ee magaalada raaso markii la aqoonsaday degmada raaso ee ay dowladda deegaanka Soomaalidu u magacowday degmo rasmi ah. sheekh cabdulqaadir sheekh ibraahim waxa uu xilligaas la yimid falsafad qoto dheer, taasina waxay ahayd in bini aadamka la dhiso ka hor inta aan dhulka la dhisin. hadafkuna waxa uu ahaa in la soo saaro jiil ku hubaysan aqoonta diinta iyo middan maadigaaba. silsiladii tacliinta ee magaalada raaso sanadkii 2012 waxaa la aasaasay xarunta daarul qur'aan, taasi oo lagu barto qur'aanka kariimka si ay u noqoto barbilowga waxbarasho ee carruurta raaso iyo nawaaxigeeda, iyadoo lagu shaqaynayo manhaj leh tarbiya dhammaystiran kana bilaama baridda xuruufta kuna dhammaada xifdiga qur'aanka kariimka. sanadkii 2013 waxaa la aasaasay dugsiga hoose dhexe ee abaadir si looga jawaabo baahida ardayda xufaadda ah ee u baahan waxbarasho nidaamsan oo ilaalinaysa dheelitirka cilmiga iyo tarbiyada. sanadkii 2015 waxaa la dhisay macadka daarul xadiid oo lagu barto culumta shareecada islaamka iyo dhaqanka islaamka si uu u hago xufaadda, sidoo kalena uu ugu tababaro culumta shareecada islaamka. marxaladaasina waxaa lagu soo gunaanaday aas-aaska dugsigii sare ee abaadir sanadkii 2016 si ay u dhammaato silsiladda waxbarasho ka hor jaamacadda. socdaalkaasi nidaamsan ma uusan iloobin horumarinta cilmiga joogtada ah, waxaana jiray duruus cilmiyeedyo joogto ah oo la qabta 2 sanaba hal mar, kuwaasi oo soo jiita culimo iyo arday oo ka imaanaya raaso iyo dabadaba si loo cusboonaysiiyo xiriirka cilmiga, sidoo kalena looga qaatay khibrad wadaag loona xoojiyay midnimada dacwadda. sanadkii 1442 hijriyada waxaa la yagleelay macadka ibnu jazari, kaas oo loogu talagalay culumta qur'aanka kariimka ah iyo tababarka macallimiinta si loo xaqiijiyo tayada barayaasha diinta islaamka. intaasi kadib si loo hubiyo in aqoonta guri walba ay halkiisa ku gaadhay, waxaa sanadkii 2023 albaabada loo furay daarul muslimaat oo ah rug loogu talagalay barashada iyo kor u qaadista aqoonta haweenka. sidoo kalena sanadkii 2022 waxaa la aasaasay macadka abubakar sidiiq oo ah dugsi hooy ah si loogu adeego ardayda meelaha fogfog ka imanaysa. intaasi kadib guusha ugu dambaysa ee dhabar adaygaasi ka dhalatay waxay ahayd markii dowladda Itoobiya ay si sharci ah u aqoonsatay jaamacadda islaamiga ah ee Raaso Islamic University, waana jaamacaddii ugu horeysay ee islaami ah oo sharciyad buuxda ka hesha guud ahaan dalka Itoobiya, taas oo ka dhigan midhihii 60 sano ka hor in ay maanta qaan gaareen. si aqoontu u noqoto mid gundheer, waxaa sanadkii 2024 la aasaasay macadka af carabiga ah, maadaama luqadu tahay furaha culumta shareecada islaamka. waxa maanta raasa ka dhex muuqda ma aha mid si kadis ah ku timaaday, balse waa mid dhibic loo soo dhisayay. jaamacaddu waxay maanta ka kooban tahay 4 kulliyadood oo kala ah kulliyadda qur'aanka kariimka ah, kulliyadda shareecada islaamka, kulliyadda tarbiyada iyo kulliyadda afka carabiga. waxaan eebba uga baryaynaa sheekheena weyn ee sheekh cabdulqaadir sheekh ibraahim iyo dhammaanba cod kasta oo ku garab istaagtay in ajri iyo xasanaad taama ilaahay ka siiyo. waxaana rajo weyn ka qabnaa in aqoontani ay iftiin iyo barwaaqo u noqoto guud ahaanba geeska Afrika iyo ummadda muslimiinta.